magaalada oo kooban dhaqaalaheeda oo ah mid badan marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee Somaliland ayaa u sahlay maamulka magaaladan in ay noqoto mid laga hirgeliyo wadooyin casri ah iyo mashaariic kale oo horumarineed. Dhismayaal cusub iyo magaalada oo ku fidaysa hareeraha ayaa Berbera u sahlay in ay soo jiidato indhaha dad badan oo reer Somaliland ah, iyadoo waqtigan uu dhulku noqday mid qiimihiisu uu sare u kacay marka la barbar dhigo waayadii hore. Si kor loogu qaado bilicda magaaladani ayaa waxa dawladda hoose ee Berbera ay bilowday in ay dhir ku beerto wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah, maadaama ay Berbera tahay magaalo xeeb ku taala oo kulul. xoolaha nool ayaa magaaladani laga mamnuucay in lagu dhex dhaqdo, iyadoo tallaabadani maamulka degmadani Berbera ay ku tilmaameen mid la doonayo in kor loogu qaado isla markaana lagu ilaaliyo dhirta iyo bilicda magaaladani Berbera. walow dadka xoolo dhaqatada ku dhex magaalada Berbera ay qaarkood tallaabadani ku tilmaameen mid aan sax ahayn isla markaana ay tahay mid lagaga fogeynayo xoolahoodii ay ku dhex dhaqan jireen magaalada dhexdeeda. midda koobaad oo noqonaysa dhirtan magaalada waxa noo suura geliyay marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. marka xigta dhir waxa laga saaray xoolihii noocay doonaan baa ahaadeen, riyihii, lo'dii, geelkii, wixiiba waa laga wada saaray. taasaa suura gelisay inay dhirtii xorriyad hesho oo meel kasta oo lagu beeraba ay sidaa quruxda badan laysaga taagnaadaan. imika halkan iyo meelo badan oo kale ayaa jira oo si qurux badan loo beeray, hadday population ka noqoto iyo hadday qaybtayadan degmada ee maamulka degmada noqoto. waxa suura geliyay in laga saaray xoolihii iyo dhibaatadii oo dhirtiina hesho xorriyadeedii saxda ahayd oo si nadiif ah oo qurux badan isaga baxday. maamulka magaaladani Berbera ayaa waxa sidoo kale ay shacabka u sheegeen in 30% cashuurta guryaha laga dhaafayo qofkii gurigiisa ka horbeera geed, iyadoo taasna ay dawladda hoose ee Berbera ku sheegtay dhiirigelin la doonayo in kor loogu qaado dhiraynta magaaladani. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dhiraynta magaalada Berbera. waa wax u wanaagsan xagga quruxda magaalada marka la eegana way wanaagsan tahay, oo meel bilaa dhira oo saxar wad garan kartaa iyo meel kayn isku mid maaha. marka hadda bulshadana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in la laabo dhirta meel kasta oo Somaliland ah iyadana laga beero oo Berbera quraan lagu koobin, laakiin Berbera hadaan nahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa. waana ku amaanaa maarka magaalada Berbera. wadooyinkii dhirtii oo la harsanay macala xayawaankii baa harsanaya, wax kale iska daayo. dhirayntan la sameeyay waxa kor u qaaday magacii magaalada, quruxdii magaalada iyo isbedelkii magaalada. ka dhalinyar ahaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa cid kasta oo ka shaqeysa in magaalada la dhireeyo oo la qurxiyo oo kadibna la nadiifiyo. waxa isdaba socda waxa la raadaa dhirayntii iyo nadiifintii, waana wax ku cusub degmada Berbera. shacabka waxaan u soo jeedin lahaa in laga qayb qaato dhiraynta ka socota magaalada, oo intii shacabku u baahsanay qof kasta geedkiisa beero, qof kasta ilaaliyo deegaankii oo laga qayb qaato. Khalid Fodadi, Goobjoog, Berbera.